coronavirus waa halis. walaalahayga igula nool Swiiska qof kastoo naga mid ah waxaan jecelnahay in uu ka badbaado cudurka dilaaga ah ee coronavirus. warbixintan waa warbixin ka timid wasaaradda caafimaadka. gurigaada joog haddii aysan jirin sabab muhiim ah oo kugu kalifayso inaad baxdid. sababahaas muhiimka ah waxaa ka mid ah haddaad soo adeeganaysid, haddaad aadaysid dhakhtar ama farmashiye, haddaad caawinaysid dadka khatarta ku jira, haddii aysan suurtagal ahayn in aad guriga ku shaqaysid ay tahay in aad goobta shaqada aadid. marka aad bannaanka joogdid waxaad iska ilaalisaa group 5 qofood ka badan in aynan isla socon. markasta ilaali inta aad isku jirsanaysiin. haddaad ilaalin weysid qodobadaas soo sheegnay waxaa boolisku kugu ganaaxi karaa 100 faran qofkiiba. waxaad aadi kartaa bannaanka adoo keligaa ah ama adigoo qof kale la socotid. waa soo ruclayn kartaa ama bushkuleeti baad isla soo wadi kartiin. warbixinta waxay muhiim u tahay waalidka. ilaali inaynan ilmahaada inaysan xiriir la yeelan ilmo kale oo badan. ilmaha ay saaxiibaha dhow yihiin maahane. fadlan ilmahaada si fiican ugu sharax. waalidiinta way iskaalmeyn karaan laakiin ilaali inaysan ilmaha ka badnayn 5 cunug qofkiiba. ilaalina inay ahaadaan isla qofkii. waayeelada iyo dadka qaba jirooyinka. gurigaada joog haddii aad ka weyn tahay 65 sano ama haddaad qabtid jirooyinka sida dhiigkar, sokor, cudurooyinka wadnaha ku dhaca iyo kansar. macaawino raadso haddii aad dadkaas ka mid tahay. haddii aadan ka mid ahayn dadkaas waxaad saacidi kartaa in aad u soo adeegtid waayeelada dariskaaga ah iyo kuwa qoyskaaga ahba. fadlan iska ilaali isku dhawaashada. markastana xasuusi waayeelka iyo adigaba in aad gacmaha dhaqatiin. si aan nafteenna iyo dadka kale u ilaalino waa muhiim in aan markasta gacmaha dhaqanno. iska ilaali in la isku salaamo gacanta xataa haddii ay saaxiibadaada yihiin. istiraashada aad isticmaashid waa in aad ku tuurtaa qashinka. haddaad hindhisaysid waxaad soo laabtaa gacantaada ee ku hindhis. haddii aad isku aragtid kuleyl badan, qunfac ama qandho ama neefta oo kugu dhagayso, ha ku degdegin inaad aado isbitaalka. waxaa la xiriirtaa dhakhtarka ama waxaad wacdaa nambarka dadka u shaqeeya coronavirus infoline. lambarka uu ah 08 464 4488 ama 08 463 0000. warbixinta ugu dambeysa waxaad markasta ka heli kartaa www.coronavirus.ch. waxaad caawin kartaa badbaadinta nolol.